Tunda Yekwa oo qaabilsanaha siyaasadda ee AMISOM ayaa maanta ka qayb galay dood ay soo qaban qaabiyeen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cilmiyeed ku saabsan mandateeka ay ku joogaan ciidamada AMISOM Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay wakiil ka socday AMISOM iyadoo halka su'aalo ay ku weydiiyeen xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Xaaji Xasan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Qorsheel iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiqaadir Siidi. dood cilmiyeedkan oo ay ka soo qayb galeen warbaahinta qaybaheeda kala duwan ayaa waxa halka la isweydaarsaday oraahyo ka turjumaya ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya wixii ay Soomaaliya ka qaybteen xagga amniga iyo xagga mas'uuliyiintii ka soo qayb galay madasha ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan rugtaan waa rug u taagan in mar walba dhibaatooyinka jira ay xaliso ummadda isu keento suurogeliso wax jiro in laga hadlo saas darteed maanta barnaamijka wax badan ka qaadan mayno anagoo haddaan nahay xarunta think tank wax kale maaha horaynu ku sheegnay inaanu mar walba maaragtay waxa dhibaatooyinka jira ama waxa Soomaaliya ka socda ama mar walba maxay ahayd think tank inay samayso dood furan doodaas oo ah dadku inay waxay su'aashii qabaan meel kasta ha noqoto meel kasta gashay in ay laga kaafin karo oo maaragtay ummadda loo soo bandhigi karo marka maanta maadaama aan casunnay AMISOM casunnay waxaan nala socda oo ama noo yimi u qaybsanaha siyaasadda ayaa inoo yimi waayo waa la kala qaybiyey maalin siyaasadda laga dhigay maalin waxaa laga this year twice and thank you very much for your very frank views. And I also want to be frank, even though I work for the AU. And as a Nigerian, I think I owe it to you to be frank, to be honest. And your question was about whether the government was actually really building up the armed forces or it was a project. And I want to give you the real answer from what I feel somebody who works with inside. aad baa u mahadsantahay su-aasha ay weydiisay su-aal aad macna ay weydiisay waana ku karaamaysan tahay laakiin su-aasha hadda markaan dib ugu laabto arrinkan ah aad weydiisay oo ah in project uu yahay mashruucan ama inay dhab naga ahayn annaga inuu mashruuc yahay oo dowlado kale ay wataan ama inay dhab naga tahay in aan annaga rabno inaan ciidan Soomaaliyeed la dhiso an waxaan kuu sheegayaa inaan rabno inaan ciidan Soomaaliyeed la dhiso ayaan kuu sheegayaa. I think what we need to understand is that Somalia has progressed. Whatever you say, this country is moving forward. Like I said, I first came to Somalia in 2009. When I first came, I used to sleep in the bushes. I couldn't come to places like this. I am now here with no fear. I'm now here in the midst of you. That shows that security is working to some degrees. waagi aniga halkaan ahayd oo sagaalkii dibiyadii duurkaasi aan jirnay meel aan ku weynay meel wax ka cunay meel wax ka cabnay midna ma jirin marka waan ku faraxsanayn buur shaqo adag oo aan ku jirnay maanta balaan buur meesha aan joogo idinku raftii meesha aad joogtaan iyo meelaha aad shaqo ka cabi kartaan iyo meelaha aad mari kartaan shaqo weyn oo aan qabanay waan ku faraxsanahay shaqadaas waan sii wadaynaa shaqadaas. I would also say that if you look at the security forces you have now, both in Mogadishu and across the regions, they have increased their capacity to the extent that we now as AMISOM fight side by side with Somali forces. And I think it's important for you to understand that Somalia has reached where it is today, not just because of AMISOM, but because of the fact that we have Somali forces working side by side. I mean, and these are forces, I can tell you, sometimes do not have food, do not have water. We have to share water with them on the battlefield. Your troops, the ones that we think are not really that up to par, are people who are sacrificing for this great country. Now, what I would also say to you is that
we now have something that shows us Somalia is ready to take off. And what is that? I think that document is a transitional plan. waxaan kuu sheegayaa waxaa weeye wuxuu yidhi soomaalida horumar weyn bay samaysay soomaalida taqaanayna maaha soomaalida maanta joogta ciidanka aad leedahay soomaali weeye oo masaakiin weeye shaqooyinka ay qabteen cid qaban karto adduunka qaban karta ma jirto iyagoo aan raashin haysanin oo aan biyo haysanin bay dagaalyahanna yihiin si fiican baynu dagaalameen waa wada shaqayn waa wada dhimanay wax badan baan wada qabanay waan wada dhimanaynaa wada noolaanaynaa xildhibaan foosiye yuusuf xaaji horeyna u soo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahaydna wasiirka arrimaha dibadda dowladdii federaalka soomaaliya uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aad baan uga mahad celinaynaa wakhtiga ayna siisay xildhibaane bal maanta xaruntan tala soo jeedintu waxay qabatay dood ku saabsan oo ay doodaas ay ka soo qayb galeen xildhibaano iyo wasiiro horey xilal hore uga soo qabtay dawladda doodan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan mandate-ka ay ku joogaan iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya ka qabteen intii ay joogeen waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa kamid ahaa in ciidamada AMISOM ay geysteen tacadiyo adigu waxaad haatan kamid tahay jiyaasha dawladda federaalka Soomaaliya bal arinta wax sharciya oo baarlamaanku uu ka soo saaray oo la xisaabtan dhinaca shacabka ay dhibaateeyaan AMISOM oo aad samayseen haddaad tihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ma jirtaa waana ka jawaabeen laakiin annaga baarlamaan ahaan run ahaantii dood gaara oo aanu ilaa hadda u furnay ma jirto tacadiyadooda hase yeeshee marar hore waa laga hadlay gaargaar waa looga hadlay dacwadana waa la gudbiyey oo wasaaradaha ay khusayso ee dawladdu waa gudbiyeen waana jireen niman ma garanaysaa dunuub kala duwan maaragtay dalalkooda maxkamada lagu saaray waqti waxa lagu jiraa hadda runtii ay dareemeen iyaguna in dadkan xuquuqdoodii ay xaq u leeyihiin cabdiqaadir siidi oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaan markii munaasabadu ay soo ilaatay wax ka weydiinay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed dood cilmiyeedkan ay maanta soo bandhigeen runtii waxa ka soo qayb galay sarkaalka u qaabilsan AMISOM ninka ugu sareeya dhinaca siyaasadda oo ah wakiilka ama maxaa ku raada xafiiska ninka ugu sareeya maxaa ku raada siyaasadda ee AMISOM political office nin la yiraahdo Dr. Batutu oo asalkiisu hore Nigerian ah ninkii hore Ugandesku ayaa lagu bedelay Xaaji Sabi Rumbi lagu bedelay salaaligeeda marka maanta AMISOM waxaan u keenay waxay tahay sababtoo ah siyaasadda loo keenay AMISOM inay AMISOM laftigeeda u sharaxdo shacabka Soomaaliyeed xamba jirta waa AMISOM maxay qabatay nin oday halka ka hadlay walaalkeena Salaam Ali Jaal wuxuu yiri badda kula waa guuxda mana butaacdo maana sidii webi waa socda haduu butaaco bad laakiin waa soo guuxda waa noqotaa hadana AMISOM saasoo kale shacabku sheegeen uu yiri طبعا way jirtaa xataa soo kale way jirtaa shacabka inay leeyihiin AMISOM shabaabka maxaa ku rawa iyo nimanka argixisada waxba kama qabato arintaas inay AMISOM afkeeda ku sharaxdo ayaan ka soo dhaadhicinay nilida Simon Wongulu ayaa maxaa ku raada kamid aha ragga maxaa ku raada runtii aad iyo aad arintan aan kala hadalnay oo ah ku xigeenka maxaa ku raada missionka AMISOM ninka halka jooga iyo taliyaasha AMISOM General Paul Lockett taliyaha maxaa ku raada ciidanka Uganda laftigiisa aadid baan maxaa ku raada arintan ugu soo hadalnay محمد عبد العثمان محمد فراديره ستار تي في مقالة مقدشو.